لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ولا له أيدي سلام يا سلامة إسلامك وأيديك سلام يا مرلبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha muslimiinta meel walba aad joogtaan, waxaan rabaa inaan u faa-iideeyo haddii aan la idmo gabdhaha muslimiinta ka cabanaya dilanka meel walba ay joogaan, xagga ilmaha uu ka dilma mar walba iyo ilmo la-aanta. haddaad hore usoo dhali jirto oo aad gadaal ka qaadi weyday, iyo haddaad hore usoo dhalinba iyo haddaadan hore usoo dhalinba, labadaba way ku anfacaysaa insha allah. iyo dilanka aan hore idinku sheegay, waxaa isii dheer dhiigga caadada. gabdhaha ka cabanaya dhiigga caadada ka daaha mar walba ee markuu raba iska imanaya bishii mar, macnaa 2 bilood mar, bishii mar baa la rabaa inuu yimaado dhiigga saxda ah, inuu bishii markaa yimaado. laakiin waxaa jira marmar dhiig kaa imanaya bishii 2 jeer. kaas waa qalad saan u arko anigu, weligay ma arag. dad badan oo dhahayo bishii hal markuu nagu dhacaa waan arkay, laakiin dhowr jeer baan waxaan arkay gabdho dhahayo 2 jeer buu bishii nagu dhacaa. marka waxaan u maleeyaa macnaha inuuna sax ahayn. 2 wiigna mar ma fiicno. waxaa ilaah badan bishii mar insha allah, naxariista ilaahay. calaa kulli xaal waxaan doonayaa inaan gabdhaha walaalahay inta aan sheegayba uga faa-iideeyo. alaabtan waa alaab dabiici ah, waad ujeedaan waa geedi caadi ah, miro ah, xabadu rashaad weeyaan, waad aragtaan. waa mid shiidan, isagoo shiidnayna waa kanaa dhalada iigu jiro. wakaa hada aragtaanna waa idin tusayaa. maasha allah, wakaa waa xabadu rashaad. maasha allah tabaarakallah. isagoo shiidan wakaa, iyo malabka kanoo 6 qaado ilaa 10 qaado ah, iyo malabka haafkiisa oo intaan laga ama bakeeri malaba baad isku qasin insha allah. waana kan isagoo qasan. mar horaan sii qasa, kan waan haystay, muddaan haystay maasha allah. laakiin waxaan rabaa inaan si fiican u sharaxa. waa malab iyo xabadu rashaad la shiiday, adaana shiidan karo. af englishna waxaa lagu dhahaa flaxen seed ama flax seed baa la dhahaa. flaxen seed waana budo, waa ujeedaan budo weeyaan. maasha allah, markaad shiido waxaa moodaa in lagu daray saliid yar si isugu dhexdhacaya. maasha allah. waad qasi bakeeri haafkii ah iyo 10 qaado kana bakeeri haafkii oo malaba iyo 10 qaado xabadu rashaad waad qasaysaa. waad ujeedaa maasha allah. waad isku garaacaa dilaa yiraahdo insha allahu tacaala. waxaa kaloo sameyn markuu dhiigga lagu dhaco ayaad cunaysaa insha allahu tacaala. waa dhiigga caadada. xilliga uu kugu dhaco ama subaxa kugu dhaco ama habeen. hadduu habeen kugu dhacayna isla habeenkii baad bilaabi, hadduu subax kugu dhacayna isla subaxii baad bilaabi. waxaad sameynaysaa 1 qaado ayaad ka cuni. saas baad u cunaysaan. waad ujeedaan maasha allah, waad aragtaan. haddii laa yiraahdo waan isku soo noqonaynaa insha allah. waxaan rabaa xoogaa inaan ma aragto si fiican idinku sharaxo. waxaana doonayaa insha allah inaan idin sharaxo, si fiican idinku sharaxo. tan idinku tusaya qaadada baashan haddii rabtaa 1 qaado
intaad walaaqdo malabka marmar way kala haraan iyo miraha waad walaaqi intaasoo kale aad ka cuni insha allah haddii ilaa yiraahdo saas baad samayni 4 cisho ayaad cuni insha allahu tacaala hal qaata habeenkii ah iyo hal qaata subaxi baad cunaysaa 4 cisho haddii dhiigana sii socda 4 cisho ka badanna sii cuni maysid maalmahaagaad xisaabine waad joojinaysaa 4 cisho kadib insha allah waa markuu dhiiga kuugu dhaco baad cunaysaa kaa hawshiisaan ka baxnay maasha allah waxaa inoo soo haray kan waad ujeedaan waad aragtaan oo idiin soo dhaweynayaa waxa weeyaan kiniinkaas waxaa loogu talagalay dumarka waad ujeedaan waxaa ku sawiran hooyo uur leh waxaa ku sawiran maasha allah waxaan rabaa inaa idin sharaxa kiniinkan markaad daawadan dhammaysaan haddii ilaa yiraahdo oo dhiiga caadada ka qabaysataan baa kiniinkan cunaysiin labadooda la iskuma wadi karo haddii kale waa laba daawo islaynaya waad ku xanuunsani kan baad dhiiga caadada cunaysaa 4 beri gudahood oo subaxii hal mara habeenkii hal qaato subaxii hal qaato markaa 4 beri dhamayso oo daahirsato oo qabaysato waad kan bilaaba insha allah dahaaro qaadataan kiniinkana bilaabaysaan waa idin tusayaa ee hooyada uur kale ku sawiran walaalayaal dad badan oo ilaahay ugu faa'iideeyay waa kaas maasha allah waa hal xabo weyn kiniinkan materna ama materna baa la yiraahdaa insha allah tacaala biidnillah waad niyeysani joojini maysid inta xabba ku jiro 100 xabbaa ku jiro waad cunaysaa haddaad uur leedahay haddii kale iyo haddaadan lahayn waad cuni waayo wuxuu soo celiyaa hormanka awoodda hormankuu soo celiyaa iyo awoodda minka iyo xataa haddaad nuujinayso waad cuni kartaa cunigana caano badan buu helayaa nafaqa leh ha joojini waa fitamiin iyo waxaa isku dhex jiro iron baa ka buuxa fitamiin baa ka buuxa oo nooc walba la B C D E waxaa uu leeyahay maasha allah ka hooyo ahaan haddaad tahay hooyo ilmo koorinaysana waad cunaysaa ama dhal ama dhalin 100% ku caawin insha allah biidnillah kariim kiniinka markuu kaa dhamaadaba soo gata markuu idinka dhamaado soo gata wuu idin anfacayaa naftirkiisana dhiiga wuu caawiyaa insha allah waana isku dhex wadaysaan kanna xilliga kugu dhacaad cuni kanna xilliga caadiga ah haddii ilaa yiraahdo haddaad uuraysatayna alxamdulilah uma baahnid kan mar labaad haddaad uuraysata marka uurayso ood ka qabaysatay uma baahnid kan laakiin haddii kuugu dhici waayo ilaahay qadartii macnaha cunug uur aad yeelan weydo kiriibka labaad ee dhiiga caadada kuugu dhaco baad haddana isticmaali daawadan aad ku soo noqoni sidii oo kale samayna 4 beri baad ka cuni haddii markaa labaad oo ku caawin waayo mar saddexaad laakiin natiijo fiican baad heli insha allah biidnillah kariim gabdho badan baa waxay yiraahdeen kuwana qaybtii hore ku heleen mar labaad mayna isticmaalin kuwana qaybta labaad bay cunaan mar saddexaad mayna isticmaalin insha allah tacaala ilaahayna bari niyeyso wax walba waa niyadda haddii adiga go-aanta inaad ilmo dhasho biidnillah kariim ilaahay kuma xasteeyo kumana diidayo ilaahay waa qafuur raxiim wuu ku siinayaa addoonkiisi baa tahay wuuna kuu dhib yaraynayaa iga raali ahaada ilmahan qaylinaya wuuna ku siinayaa insha allahu tacaala intaa yar baan rabaa inaan idin sharaxo niyeysta walaalayaalow oo ilaahay barya 5 waqti salaada tukada ilaahay isku xira digriga ilaahayna afka ku haya xataa waxaan kuu hubaa
digriga ilaahay haddii aad 24 saaca ku hayso inaad shaqeynayso telefoon ku hadlayso ma sheegin inaad mashquul tahay ma sheegin inta kale insha Allah faa'iido ku noqonaya dambi dhaafna ilaahay wuu kaaga dhigayaa waxaad adduunyada jeceshaana ilaahay wuu ku siinayaa mar walbana ilaahay barya marka alaabtan bilaabaysaana 2 ragcadood soo tukada salaad ilaahay bari oo maxay ahayd sunno ah insha Allah ilaahay taladaada u dhiibo taladaada insha Allah tacaala waad helaysaa biidhnillah kariim ilaahay waxaa idinka baryayaa insha Allah intii dilan qaba dilankeena ilaahay ka saaro intaan ilmo helin inuu ilaahay ubad khayr qaba siiyo intii dhalmo u baahanna soo dhale haddana doonayna sii dhalaanna inuu ilaahay ubad khayr qaba siiyo intaan dhalinna inuu ilaahay ubad khayr qaba siiyo oo waasica oo ay ku nastaan ku degaan intii maaragtay dhiigooda ka wareersanna ilaahay caafimaad siiyo walaalayaal dhiigga wareerkiisa waxa keena waa stresska iska ilaaliya too much u fikirina ayna waa ognaa hooyooyinka dhibaato badan baa haysta laakiin adduunyadan ha isku mashquulinina hana israacinin waxaaga ilaahay u dhiibo taladaadana ilaahay u dhiibo waayo hadaad waxan maxay ahayn waxan maxay daba socdaan waxan waa maxay kan hadaad ku hayso adaa waalanaya wallaahi wax walba oo la sameynayana ha u fiirsana haddii halkaa adoo marayo wax lagugu sameynayo xasbuna allah wa nicmal wakiil dheh intaasaa ku filan ilaahay u dhiibo taladaada wax walba xasbuna allah wa nicmal wakiil mar waxaa weeye stressna ma fiicno stresska badanna wuxuu keenaa dhiigga inuu wareero inuu ilmaha kaa dilmo inuu maaragtay yacni ninkaaga uu daciifo ukumaha ku jiro maxay ahayd hormonkaagana uu kaco oo maaragtay aad iyo aad u shaqeeya deen ka dhumo maaragtay kontaroolka ka dhumo hormonka hadduu mar kontaroolka ka dhumo waxba kuuma qabanayo oo insha allahu tacaala ilaahayna taladiina u dhiibta ilaahay isku xira dhibaato kastoo idin hayo ilaahan baa qaadi kara cid kale ma qaadi karo insha allahu tacaala intaasan kusoo gabagabeynayo arrinteeda iga raali ahaada ilmaha qaylinayo maasha allah haddii laa yiraahdo isoona cafiya khayr badan baan idin rajeynayaa meel walbaad joogtaan ajir iyo xasanaad allah idin siiyo walaalayaal sii sheer gareeya subscribe-na ii saara iyo like insha allahu tacaala ilaahayna waxaa idinka baryayaa qarya adduun inuu idin xafido inuuna idin dembi dhaafo insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu